ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markaan qodobadii ugu xisaab badnaa Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Kenya oo qarka u saaran inay iskaga harto kiiska dacwadda badda Soomaaliya qarax lala eegtay dad rayid ah oo ka dhacay Owdhale dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay rabshadaha dalka Koonfur Afrika Puntland oo dib u eegis ku sameysay heshiiska Seychelles wararkii ugu dambeeyay khilaafka cusub soo kala dhaxgalay dowladda federaalka iyo Lusuna qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hadduu ay beedmo markaan u diyaar garooba ayagoo intaasi ka faahfaahsan wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa sheegaya inuu soo ifbaxay khilaaf hor leh u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Lusuna khilaafka cusub ayaa la sheegay sida aan xogta ku helnay in uu imaaday kadib markii Lusuna ay codsatay in la hoosgeeyo guddiga doorashada Galmudug Lusuna waxay ra'iisul wasaare Kheyre hor dhigtay inay iyagu maamulaan doorashada marka la qabto shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo la filayo in lagu qabto magaalada Dhuusamareeb dowladda Soomaaliya ayaa Lusuna ka hor timid waxayna taas sababtay inuu khilaafka meesha ugu sareysay gaaro waxaana saacadihii la soo dhaafay dhacay kulamo aan loo kala kicin oo u dhaxeeyay Lusuna iyo ra'iisul wasaare Kheyre waxyaabaha ay Lusuna dalbatay ayaa ah in ay iyagu qaataan guddiga doorashooyinka iyo maamulka howlaha doorashada wararka qaar ayaa sheegaya in sababta uu shirka dib u heshiisiinta shalay u baaqday ay ahayd khilaafkani darteed dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb geysay ciidamo badan oo iskugu jiray AMISOM iyo kuwa dowladda waxaana wiiqmay awoodii ciidanka oo ay Lusuna kulahayd magaalada Dhuusamareeb xeeraryaha guud ee qaranka Dr. Maxamed Cali Daahir ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Kenya ay qarka u saaran tahay inay iskaga baxdo kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya ee yaalo maxkamadda cadaaladda ee ICJ Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in Kenya ay hadda ka fakarayso sidii ay kiiska uga hari lahayd hadalka Axmed Cali Daahir ayaa imaanaya 2 maalmood kadib markii ay Kenya maxkamadda ICJ ka codsatay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda si ay u qarato qareena cusub wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Puntland Cawil Sheekh Maxamuud ayaa marka hore beeniyay in maamulkaasi uu sii daayay maxaabiis u xirnaa falal burcadnimo kuwaasi oo horey loogu soo xukumay Seychelles maxaabiistani oo tiro ahaan gaaraya ilaa iyo 30 una badan dhalinyaro ayaa wasiirka waxa uu sheegay in ay weli xiran yihiin dadkaasi burcadbadeeda ah way xiran yihiin is-afgarad u dhaxeeya Puntland iyo Seychelles ayaa jira Puntland cidna ma sii deynin saxna ma ahan arrinkaasi ayuu yiri wasiir Cawil Sheekh Maxamuud dhanka kale wasiirka cadaaladda Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay doonayaan in haatan ay dib u eegis ku sameeyaan heshiiskaasi si ugu yaraan wax looga bedelo annaga oo rabna in aanan jabin heshiiska nagala dhaxeeya Seychelles haddana waxaan rabnaa in aan sidii hore wax ka bedelno ayuu intaasi ku daray wasiirka Puntland ayaa ka mid ah maamulada sida aadka ula dagaalama kooxaha burcadbadeeda Soomaalida waxaana ay leedahay ciidamo gaar ah oo ka howlgala xeebaha bariga ee Soomaaliya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya Qasaraha ka dhashay qarax Xogan oo maanta ka dhacay qayb ka mid ah deegaanada Owdhale ee gobolka Shabeellada Hoose qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lala eegtay dad shacab ah oo olole nadaafadeed ka waday halkaasi ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi halka ay ku dhaawacmeen 5 kale sida ay xaqiijiyeen ila deegaanka ah sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada dowladda qaraxa kadib ay soo gaareen goobta isla markaana ay ka sameeyeen baaritaano kooban ma jirto ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda oo la xiriira qaraxaasi lala eegtay dadka shacabka ah Owdhale oo ay dhawaan la wareegtay ciidamada militariga Soomaaliya ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro qaraxyo ay geystaan dagaalyahanada Al-Shabaab wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa si kulul uga hadlay rabshadaha iyo dhibaatooyinka dadka ajaanibta ee Soomaalidu ku jirto lagu geysanayo gudaha dalka Koonfur Afrika warka soo baxay xafiiska wasiirka Maareeye ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay si dhow ula socoto boobka iyo rabshadaha ka socda dalkaasi isla markaana ay aad uga xun tahay sidoo kale waxay dowladdu ugu baaqday dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika in ay xoojiyaan foojignaanta iyo taxadar dheeri ah dowladda federaalka Soomaaliya waxay maalmahani isha ku haysaa rabshadaha ka dhacaya dalka South Africa oo ay ku nool yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo u badan ganacsato kuwaasi oo weerar lagu qaaday sanooyinkii la soo dhaafay iyo rabshadaha hadda dhacaya oo ay ka soo gaareen waxyeelo nafeed iyo mid hantiyada dowladda Soomaaliya waxay ka xun tahay
tahay falalka boobka iyo barakicinta ee loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo ganacsatadooda waxayna ka codsanaysaa dowladda South Africa inay ilaaliso oo ay damaanad qaado badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo hantidooda. ugu dambeyn dowladda Soomaaliya waxay muwaadiniinta degan dalka South Africa ugu baaqday in ay feejignaadaan iyo taxadar dheeri ah muujiyaan. haddaba wixii soo kordhana la wadaagaan safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika.